waxaana wanaagsan daawadayaal halkan waa janalka Wal News qodobada wararka daawad doontaan waxaa kamid ah faahfaahin kala duwan oo ka soo baxaya kulan Xasan Sheikh oo la qaatay xildhibaanada Koonfur Galbeed hadalheen iyo su'aalo badan oo ka dhashay raaligelintii uu bixiyay afayeenka madaxtooyada Saciid Dani oo qorshe uu ku soo laabanayo ka bilaabay Puntland iyo maxaad ka ogtahay daawada jabhadaha iyo kooxda Al-Shabaab ee dagaalka kula jiraan xukuumadda Abiy Ahmed qodobadaasna waxay ayaan kuwii ugu waaweynaa warka janalka Wal News fadlan ku soo biir janalkan oo kamid noqon saaxiibada maalin walba ku soo xirmaya ee ka hela wararka xasaasigan ku bayna aragtidina halka oo soo nagu reeba muuqaalkan oo si share gareeya asxaabtiina laagtiina way noo dhiirigelin haatana ku soo dhawaada qodobada aad maqasheen oo faahfaahsan sidaan ku heleyna xogaha ka imaanaya madaxtooyada Soomaaliya Xasan Sheikh Maxamuud madaxweynaha dalka ayaa kulan gaar ah xalay la yeeshay qaar kamid ah xildhibaanada deegaanada maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya laga soo doortay xildhibaanadan oo fariin casuumaad loo diray ka hor kulankaasi ayaa waxa ay shir albaabadu xiran yahay muddo saacado badan qaata la yeesheen madaxweynaha Xasan Sheikh Maxamuud shirkan ayaa la sheegaya inay markii dambe ku biireen xubno uu kamid yahay ra'iisul wasaare Xamza Cabdi Barre iyo gudoomiyaha golaha shacabka Sheikh Aadan Maxamed Nuur Aadan Madoobe waa sida ay tilmaamayaan xogaha qaar kulankan oo daba socday kulamo kale oo Xasan Sheikh la qaadanayay qaar kamid ah xildhibaanada laga soo doortay deegaan goboleedyada dalka gaar ahaan kii ka horeeyay ee habeenka hor uu la qaatay xildhibaanada laga soo doortay deegaanada maamulka Galmudug ayaa ujeedkiisu ugu weyn waxa uu yahay meelmarinta golaha wasiirada cusub ee la filayo inuu ku dhawaaqo ra'iisul wasaare Xamza Cabdi Barre inta badan kulankii dhaxmaray xalay xildhibaanada Koonfur Galbeed iyo Xasan Sheikh Maxamuud ayaana diiradda lagu saaray xubnaha digili mirifle ee ku matali doona golaha wasiirada cusub taa oo dood adag ay ka yeesheen xildhibaanada ugu badan ee maamulka Koonfur Galbeed ayaa kuwa taabacsan Cabdicasiis Xasan Maxamed Laftagareen oo la og yahay sidoo uu ku soo saaray inta badan xildhibaanada maamulkaasi waxaana fariin ay isagu ka wadeen la sheegay in la tageen fadhiga madaxweyne Xasan Sheikh Maxamuud ee la qaadanayeen dooda ugu adag ayaa laga yeeshay qaar kamid ah xubnaha golaha wasiirada oo Laftagareen u arko inaysan ku matali karin beelaha digiliga mirifle isla markaasna uu daneynayo isagu inuu talo ku laado xubnaha dhankaasi ka soo galaya wasiirada cusub inkastoo boosaska sida weyn dooda looga yeeshay ee warar kala duwan ka soo baxayaan ayaa haddana xoogaha oo si aanu heleyno waxa ay tilmaamayaan in si gaar ah looga dooday xilalka wasiirada ay kala heli doonaan Cabduqaadir Maxamed Jaamac oo haatan ah wasiirka gaashaandhigga la filayana mar kale in xilkaasi loo magacaabo iyo sidoo kale wararka kale ee la xiriira in ra'iisul wasaare Xamza iyo madaxweyne Xasan Sheikh ay daneynayaan in wasiirka wasaaradda oo qaaftay arrimaha diinta loo magacaabo Mukhtaar Cali Abu Mansuur waxaa la sheegay xildhibaano labadaasi shakhsi si weyn uga soo horjeeda isla markaasna ku hadlayeen fikirka Laftagareen ee dood adag kala hortageen madaxweyne Xasan Sheikh Maxamuud taa oo keentay in muddo dheer kulankani uu qaato ugu dambeyn waxaa la sheegay in madaxweyne Xasan Sheikh Maxamuud uu ka gaday xildhibaanada Koonfur Galbeed inay cod ka siiyaan wasiirada cusub oo soo magacaabi doono ra'iisul wasaare Xamza Cabdi Barre balse lama oga inuu wax ka bedeli doono xubnaha tabashooyinka ay qabeen xildhibaano ka tirsan maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya ra'iisul wasaare Xamza Cabdi Barre oo muddo 10 maalmood ah baarlamaanka federaalka Soomaaliya ka codsaday ayaa haatan wax ka yar 3 maalmood ee uga harsantahay waqtigiisa waxaana sidoo kale dardar ku socda kulamada uu madaxweyne Xasan Sheikh Maxamuud la qaadanayo xildhibaanada gaar ahaan isagoo siyaabooyin kala duwan xildhibaanada ugu qaabilayo dowlad goboleedyada dalka ay ka kala yimaadeen waxaana jiray in uu horay kulamo ula qaatay xildhibaanada baarlamaanka maamulka Galmudug ku matala golaha shacabka baarlamaanka Soomaaliya dood adagna ay ka yeesheen wasiirada dhanka Galmudug ka imaanaya ee ka mid noqonayaan xubnaha golaha wasiirada cusub sidoo kale madaxweyne Xasan Sheikh ayaa la filayaa in isla maanta uu qaabilo xildhibaanada baarlamaanka Soomaaliya ka tirsan ee laga soo kala doortay deegaan goboleedyada Jubbaland iyo Puntland inkastoo Puntland dhankeeda tabashooyin ay jiraan haddana waxaa wararku qaar tilmaamayaan in xildhibaanada baarlamaanka dhanka maamulka Jubbaland aysan jirin tabashooyin xaggooda ka imaanaya ee la xiriira wasiirada cusub ee ra'iisul wasaare Xamza Cabdi Barre uu diyaariyay geesta kalena jahwareer xoogan ayaa ka dhashay raaligelintii uu dhowaan bixiyay afayeenka madaxweyne Xasan Sheikh afayeenka madaxtooyada Soomaaliya Cabdikariin Cali Kaar ayaa raaligelin ka bixiyay hadal uu hore u sheegay oo la xiriiray wada hadaladii madaxweynayaasha Soomaaliya iyo Masar ee magaalada Qaahira ku dhaxmaray qaar kamid ah warbaahinta ayaa si qaldan u fahantay oo na xigatay qaar kamid ah jawaabaheega intii lagu guda jiro warbixin 27 Julaay ka siiyay booqashadii taariikhiga ahayd ee madaxweyne Xasan Sheikh ku tagay Qaahira iyo wada hadaladii xigay
ee uu la yeeshay dhigiisa madaxweyne Cabdilfataax al-Siisi ayuu yiri Cabdikariin oo arrinkaasi ka jawaabay. Wuxuu ku sii daray qoraalkiisa: waxaan ka cudur daaranayaa in si qaldan loo fahmay loona xigtay sharaxaad aan ka bixiyay hadaladii madaxweyne Siisi uu ka sheegay shirkii jaraa'id ee madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ku wada qabteen qasriga madaxweynaha Masar. cudurdaarka uu bixiyay Cabdikariin ayaa dhaliyay su'aalo ka badan jawaabihii uu isku dayay inuu bixiyo, waxaana ka muuqday qaladaad iyo jahwareer badan oo ay ka mid yihiin kow. Cabdikariin wuxuu sheegay inuu raaligelin ka bixinayo in warbaahintu ay si qaldan u xigteen, balse xaqiiqda ayaa haddii adiga aadan sheegin wax qaldan uma baanid inaad raaligelin bixiso. Haddii ay kula tahay in warkaaga si qaldan loo xigtay oo loo fasiray, waxaa kuu banaan laba kaliya: inaad dib ugu celiso sida aad warka u tiri oo sharaxaad dheeri aad raaciso oo ka saaraya mugdi kasta, iyo inaad ka aamusto haddii ay kula tahay in markii horeba warkaagu caddaa, balse adiga oo raaligelin bixinaya haddana eedda cid kale dusha kama saari kartid. Arrinta labaad, su-aasha ugu weyn ee ka dhalatay raaligelinta afhayeenka ayaa ahayd: muxuu hortu raaligelin ka bixinayaa, ama muxuu yahay hadalka uu sheegay in sida qaldan loo fasiray? labadaba kuma cadeen qoraalkiisa. Cabdikariin Cali Kaar waxaa laga filayay inuu sheego hadalkaasi sida qaldan loo dhigay iyo sida saxda ah ee uu rabay in loo tabiyo. Arrinta saddexaad, qoraalka ka soo baxay afhayeenka wuxuu dhaliyay jahwareer cusub oo ku saabsan halka ay Soomaaliya ka taagan tahay biyo xireenka muranka dhaliyay ee Itoobiya ay ka sameynayso webiga Niil. hadalkii Siisi ee Qaahiro wuxuu ahaa Soomaaliya la qabto cambaareenta ah in biyo xireenka la buuxiyo iyadoo oo aan heshiis lagu wada ahayn. haddana waxaa hadalkaasi ka daba yimid afhayeenkii fila Soomaaliya oo u dhigay in Soomaaliya aysan la safan Masar. haddana mar kale isagaa ka daba yimid hadalkiisii una muuqday inuu ka laabanayo, taas oo sheegashada u celinaysa halkii ay joogtay Qaahira iyo in Soomaaliya hadda raacsan tahay dhanka Masar. arrintan waxaa kaloo ay dhalinaysaa su'aal ah in cudurdaarka ka yimid afhayeenka uu ka dhashay cadaadis ka yimid dhanka Masaarida oo ku saabsan in Soomaaliya ka laabatay arrin ay labada madaxweyne isku raaceen. waxay ahaataba afhayeenka fila Soomaaliya wuxuu dowladda Soomaaliya shacabka iyo warbaahinta geliyay jahwareer siyaasadeed, wuxuuna u muuqdaa qof aad u jecel hadalka. marka hadalka batana waxaa bata qalalaadka, ayay yiraahdeen qaar ka mid ah dadka siyaabooyin kala duwan uga hadlay arrinkiisa. wuxuu marar badan isku dayaa inuu ka hadlo ama sharaxo waxyaabo ee diblomaasiyad ahaan ku habbooneed in laga aamuso. markuu ka hadlayo wuxuu dhexgalaa qalla diblomaasiyadeed, ayay yiraahdeen dadka dhaliila Cabdikariin Cali Kaar. Saciid Danina waxa uu bilaabay olole siyaasadeed cusub. madaxweynaha dowlad goboleedka Puntland Saciid Cabdullaahi Dani ayaa kulamo muhiim ah saacadii ugu dambeeyay xarunta madaxtooyada Garowe kula qaatay guddiga ku meel gaarka ah ee doorashooyinka iyo wakiilada ururada siyaasadda Puntland, xubno ka tirsan odayaasha dhaqanka iyo siyaasiyiinta. kulamadan ayaana lagu lafagurayay dardargelinta iyo dhamaystirka nidaamka dimuqraadiyadda Puntland, iyadoo hadda ay socoto doorashooyinka golayaasha deegaanka ee degmooyinka Puntland sida lagu sheegay qoraalka soo baxay madaxtooyada. sida ay soo warinayaan ilo wareedyo lagu kalsoon yahay, madaxweyne Dani ayaa waxa uu guddigu la wadaagay warbixin ku saabsaneed qorshaha xukuumaddiisa kahor intuusan ka dhammaanin muddo xileedkiisa. Dani ayaa rabay inuu sii dardargeliyo barnaamijka doorashooyinka hanaanka dimuqraadiyadda si mar kale uu ololaha doorashada ugu galo xilli ay waarsan tahay wax ka yar 2 sano. waxaa xusid mudan intii ay socotay doorashada tijaabada ah ee golayaasha deegaanka in Dani iyo ururkiisuba kuraas badan kaga guuleysteen 2 ka mid ah musharaxiintii uu tartanka la galay 2019. sidoo kale waxa uu ururka talada haya ee ka uu dhankiisa ku fashilmay dhisidda golaha deegaanka iyada oo qaar ka mid ah ururada siyaasadda Puntland ee doorashadii ugu dambeysay ee 3 degmo ay sheegeen inay hareeyeen wax isdabamarin. dhinaca kale Saciid Dani ayaa isla magaalada Garowe kula kulmay odayaal dhaqameed, iyadoo ilaa iyo hadda aan si dhab ah loo ogeyn waxa uu ku saabsanaa wada hadalkaas oo gebi ahaanba saxaafaddu dibajoog ka ahayd. isku soo wada duubo Dani oo u muuqda in uu durbaba diyaarinayo soo laabashadiisa maamulka xilli sanado ay u harsan yihiin, ayaa waxaa caqabado horle ku noqday hindisiisa dhowr arrimood oo xalkooda looga fadhiyo, kuwaas oo ay ka mid yihiin sicir bararka,
tirakoobka dadweynaha oo aan la sameynin, isku dhacyada hubeysan ee Boosaaso iyo dilaaca qabaa'ilo aad u hubeysan. waa hagaagii daawadayaal iminkana waxaanu eegaynaa al-shabaab iyo jabhadaha kale ee dagaalka baan kula jira dowladda Abiy Ahmed. maxaad ka ogtahay daawade? dowladda Itoobiya ee uu Abiy Ahmed hoggaan ku hayo waxaa dagaal kula jira jabhado gudaha dalkaasi ka dagaalamaya al-shabaab oo dhowaan dagaal ku soo qaadeen koonfurta bari ee dalka Itoobiya. jabhadaha dagaalka kula jira xukuumadda Abiy Ahmed oo iskugu jira kuwa hore u jiray iyo kuwa dhowaan la aasaasay waxa ay ka dagaalamaan waqooyiga galbeed, koonfurta iyo koonfur bari ee dalkaasi. tan iyo markii uu hoggaanka dalka Itoobiya majaraha u qabtay Abiy Ahmed 2018 waxaa sii badanayay dagaalada jabhadaha dowladda dhexe ka soo horjeeda, iyaga oo qaarkoodna ay aas-aaseen inta uu Abiy Ahmed dalkaasi qabtay. haddaba aan eegno jabhadaha dagaalka kula jira dowladda Itoobiya. kooxda al-shabaab. ururka al-shabaab ku dhawaa 15 sano wuxuu ka dhaqdhaqaaqa gudaha dalka Soomaaliya isaga oo dagaal hubeysan kula jira dowladda federaalka Soomaaliya, wadamada dariska la Soomaaliya iyo ciidamada howlgalka ee Midowga Afrika. al-shabaab weerarada ay ka fuliso gudaha Soomaaliya kasoo waxa ay weeraro qorsheysan ka fuliyaan dalalka dariska la Soomaaliya sida Kenya, Ethiopia iyo sidoo kale Uganda oo aan Soomaaliya daris lahayn balse ay ciidamo ka joogaan dalka. haddaba ururka shabaab labadii toddobaad ee ugu dambeysay waxa ay weeraro ku soo qaadeen deegaano ku teesan xadka Itoobiya iyo Soomaaliya dhanka koonfur bari ee ka wadaagaan oo kamid ah dowlad deegaanka Soomaalida dalkaasi. al-shabaab waxay marar badan sheegtay in dagaal ay ku qaadayaan wadan kasta oo ciidan u soo diray gudaha Soomaaliya ama garab siiyay dowladda Soomaaliya. dagaalka toddobaadyadii ugu dambeeyay ku dhaxmaray Caato iyo Fever labadaba dhinacba waxay ka kala sheegteen inuu midba midka kale khasaare lixaad leh u geystay, walow sheegashadaasi ila madax bannaan oo xaqiijinaya aysan jirin. kooxda al-shabaab weerarada ay ku soo qaadeen Itoobiya oo sii xoogeysanaya waxay culeys horle ku keenaysaa dowladda Abiy Ahmed oo mar horeba la daaladhaceysay la dagaalanka jabhadaha gudaha dalkaasi ka dagaalamaya. arinta labaad waa OLF. jabhadda xoreynta oromada ee OLF waxay iyaduna ka mid tahay jabhadaha dagaalka hubeysan kula jira dowladda Abiy Ahmed ee Addis Ababa ka taliso. OLF oo ay oromadu leedahay oo la aasaasay 1973 waxay ka mid tahay jabhadaha waqtiga ugu dheer dagaalka kula jira dowladda Itoobiya soo maray laga soo bilaabo tii boqortooyada Timalas iyo tan uu Abiy Ahmed haatan hogaaminayo. jabhadda OLF oo 2018 heshiis nabadeed la gashay xukuumadda Addis Ababa waxaa soo kala dhexgalay khilaaf siyaasadeed oo sababay in garab ka mid ah jabhadda oo ay dowladda Itoobiya ugu yeerto Onag Shane ay mar kale hub ka qaataan oo ay dagaal hubeysan dib u bilaabaan. OLF wixii ka horeeyay dowladda Abiy Ahmed waxay taageero military iyo tababarba ka heli jireen dowladda Asmara iyagoo saldhig ku lahaa gudaha dalka Eritrea. jabhadaasi waxay ka dagaalantaa deegaanka oromada gaar ahaan koonfurta iyo galbeedka dalkaasi. jabhadaasi oo gudaha deegaanka oromada waxa kula dagaalamo ciidamada federaalka oo kaashanaya booliska gaarka ah ee deegaanka oromada uu leeyahay. jabhadda saddexaad waa TPLF. falaagada TPLF ama jabhadda xoreynta shacabka Tigreega oo la aasaasay 1974 waxa ay ka mid tahay jabhadaha dagaalka hubeysan kula jira dowladda Abiy Ahmed oo ka arrimiso dalkaasi. TPLF oo ay leeyihiin qowmiyadda Tigreega wuxuu ka mid ahaa afar urur siyaasadeed oo ku boobay xisbigii la oran jiray EPRDF oo ku dhawaad 27 sano dalkaasi soo hogaaminayay. waxaana Tigreegu iyo dowladda dhexe iskhilaafeen markii uu Abiy xilka ra'iisul wasaaraha qabtay oo taladii dalkaasi ay ka wareegtay TPLF. khilaaf in muddo soo jiitamay oo u dhaxeeya dowladda Tigreega ee uu hogaaminayay xisbiga TPLF iyo dowladda dhexe ee Addis Ababa wuxuu isku bedelay dagaal hubeysan. dagaalkaasi oo qarxay 3 bishii November 2020 ilaa iyo haatan socda wali aan wax xalaal laga gaarin. waxaa ku dhintay kumanaan qof, malaayiin way ku barakaceen sida ay sheegtay qaramada midoobay. dagaalka waqooyiga Itoobiya ku dhawaad 20 bilood ka socday wuxuu si weyn u iqay dhaqaalaha iyo horumarka dalka Itoobiya. jabhadda afraad waa GLF ama GLA. jabhaddan xoreynta shacabka Kambela ee GLF ama GLA waxaa leh qowmiyadda Enog ee Kambela oo degan deegaanka Kambela oo ku yaala galbeedka dalka Itoobiya. jabhaddan oo la aasaasay 1985 waxay la soo dagaalantay dowladii Mangiste Haile Mariam iyo dowladii Tigreegu hogaaminayeen
waxayna dagaalka joojiyeen 1998 markii dowladii dhexe heshiis la galeen. hase yeeshee dagaalkoodu waxay dib u bilaabeen markii Abiy talada dalka Itoobiya la wareegay, waxayna ka dagaalamaan deegaanka Kambele oo xadka la leh dalka Suudaan ta Koonfureed. jabhadan waxa ay ka mid tahay jabhadii dowladda Itoobiya dagaalka kula jiray ee taageerida ka helayeen dalalka Eritrea iyo Suudaan. jabhada shanaad waa BBLM, jabhada dhaqdhaqaaqa xoreynta shacabka Benishangul ee BBLM waa jabhad la aasaasay 1996 hase yeeshee muddo markii ay dagaalamayeen 2005 waxay heshiis la galeen dowladda Itoobiya, inkastoo heshiiskaas ay marar badan fashilmeen. mar kale waxaa jabhadan la aasaasay 2018 markii qoomiyadaha jabhadaha isku beestay ee Berta iyo sidoo kale Kumus ay weeraro aan kala joogsi lahayn kala kulmeen qoomiyada Amxaarada iyo Oromada oo dalka Itoobiya ugu badan dhul beereed badanna ay kala wareegeen. waxay jabhadan ka dagaalantaa deegaanka Benishangul Gumus oo ku yaala waqooyiga galbeed ee dalka Itoobiya. deegaanka jabhadan ay ka dagaalamayso oo ku yaala biyo xireenka weyn ee Itoobiya ka dhisayso webiga Niil ayaa mid culeyskiisa si weyn looga dareemayo ciidamo aad u badan oo kuwa federaalka iyo deegaankaasna in laga howlgeliyo ee keentay. dalka Itoobiya oo ku yaala bariga Afrika oo kamid ah wadamada xasiloon ee qaaradda Afrika, balse dhowrkii sano ugu dambeeyay wuxuu noqday dal ay dagaalo iyo colaado qoomiyadaha iyo diimaha ku saleysan ay si joogto ah uga dhacayaan. guud ahaan daawadayaal wanaagga warki oo aad kala socoteen Ubal News, fadlan daawade kusoo bir janalkan aragtidaada halka oo noogu reeb muuqaalkan oo sii sheer garay asxaabtaada la agtaadana waa inoo muhiim. waana ku mahadsantahay daawashadii la socodka warka janalka.